madax kala duwan oo ka socda wadamada qaaradda Afrika ayaa waxay gaareen magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia halkaas oo ka furmay shir madaxeedka 29aad ee midowga Afrika sanad walba uu yeesho ajandaha sanadkan ugu weyn shir madaxeedka qaaradda Afrika ayaa waxa uu yahay dhalinyarada qaaradda Afrika oo hogaamiyayaasha midowga Afrika ay ka tashan doonaan sidii dhalinyarada qaaradda mustaqbal fiican loogu sameyn lahaa. I invite the various African countries to take ownership of this roadmap, which is the key to our... iyadoo diiradda lagu saari doono dhinacyada shaqo abuurka nolosha dhalinyarada iyo wadan kastaba waxa uu ka qaban doono sanadaha soo socda. madaxda gaadhay magaalada Addis Ababa waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. warar hoose oo heliyay telefishinka Home Cable hayeeshay ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo shaacin ayaa waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiinta dalka Ethiopia ay ka wada hadleen in la sii deyn doono maxaabiis ka kooban dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xidhan jeelasha kala duwan ee wadanka Ethiopia kuwaas oo la sii deyn doono maalmaha soo socda. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa markii ugu horeysay ee uu ka qayb galo shir madaxeedka midowga Afrika tan iyo markii loo magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. warbixin ay daawacday wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaysa in madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele uu ka codsaday midowga Afrika in goobjoogayaal nabadda ilaaliya la kala dhaxdhigo dalalka Djibouti iyo Eritrea oo ku muransan xuduudda u dhaxaysa labada dhinac. halkaas oo xiisad ay ka soo cusboonaatay kadib markii dawladda Qatar ay ciidankeeda kala baxday xuduudda labada dhinac u dhaxaysa.